kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka SBTV qodobada wararka maanta ugu door koronaya waxaa ka mid ah shakiga qaraxii kuliyadda jaalisiyeed oo gaaray baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaali oo su'aalo ka keenay weerarkii xarunta kuliyadda jaalisiyaad laba agaasime oo la horgeeyay maxkamadda gobolka iyo lacagta loo haysto Xamse oo si aan la filin uga hadlay qaraxii kuliyadda jaalisiyaad xog la helay ninkii isku qarxiyay kuliyadda ciidamada xoogga dalka oo al-shabaab dib ugu qabsaday deegaan hoostaga magaalada Baydhabo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo wasiirka dhalinyarada ku qabsaday miisaaniyad ay dawladda Qatar yaboohday 5 dal oo Yurub ah oo qaaday tallaabo ka dhan ah Ukraine qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran u diyaar garoowa ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran ayna ku bilawnay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ayaa si adag uga hadlay weerarkii askarta badan lagu laayay ee maalinka hor ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada Muqdisho xildhibaano dhowr ah oo madasha ka hadlay ayaa qiray inuu jiro qorshe loo diyaariyay ciidankaasi oo lagala shaqeeyay kooxda al-shabaab maxamed cabdi maareeye oo ka mid ah xildhibaanadaas ayaa shaaca ka qaaday in su'aalo badan ay ka dhasheen weerarkii isnidaaminta ee xarada kuliyadda jaalisiyaad sidoo kale waxa uu raaciyay waxaa ka mid ah su'aalaha ciidanka halkaas ku xareysan la keenay oo waxay ahaayeen ciidan tababaran oo dagaal adag la galay argagixisada oo awalba howlgalka ku jiray oo shaqo fiican qabtay ay ahaayeen sababta halka loo keenay oo haddana loo dayacay su'aal ayay ka taagan tahay xildhibaanka ayaa sidoo kale su'aal ka keenay sida ay warbaahinta qaar uga gaabisay tibinta dhacdadaasi wuxuuna tilmaamay in arrintan tahay silsilad isku xiran waxaa kale uu soo jeediyey in baarlamaanka uu qaado tallaabo degdega islamarkaana uu magacaabo guddi dabagala baarista weerarkaasi dhankiisa xildhibaan cabdirashiid xidig ayaa codkiisa ku biiriyey in loo baahan yahay in dib loogu laabto sistamka shaqaalaha si loo hubiyo dhammaan dadka u shaqeeya dowladda hadalka ka soo baxay baarlamaanka dalka ayaa ku soo aadaya iyada oo shaki xoog leh uu ka dhashay qaraxii kuliyadda jaalisiyaad waxaana loo soo xiray ilaa 3 sarkaal kadib markii uu soo galay raadka ah inay fududeeyeen weerarkaas oo ay sheegatay kooxda al-shabaab dhanka kale dadka weerarkan su'aalaha ka keenay waxaa ka mid ah gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaali oo xalay ka qayb galay munaasabad ka dhacday degmada Yaaqshiid ayaa ka hadlay weerarkii isniintii ka dhacay gudaha kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada Muqdisho kaas oo ay sheegatay kooxda al-shabaab Madaali ayaa su'aalaha ka keenay weerarkan oo ahaa isnizaamin islamarkaana lagu beegsaday ciidamo ku sugnaa gudaha xeradaas oo amnigeeda si weyn loo ilaaliyo duqa Muqdisho ayaa sidoo kale tacsiir tiiraanyo leh u diray ehelada askarta lagu laayay weerarkaasi isagoo kuwa dhaawaca ahna u rajeeyay caafimaad degdeg ah maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxaa maanta ku soo muuqday 2 agaasime oo loo haysto musuq gaar ahaan xatooyo xoolo dadweyne labada mas'uul ayaa kala Cabdullaahi Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo agaasimihii xilkan kaga horeeyay Maxamed Cadde Mukhtaar kuwaas oo ka mid ah mas'uuliyiinta haatan loo soo xiray musuqmaasuqa ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda ayaa goobta ka akhriyay eed loo haysto labadan agaasime taas oo ah musuq lunsasho hanti dadweyne iyo ku tagrifal awoodeed gudoomiyaha ayaa sidoo kale eedda ku soo bandhigay lunsashada lacag malaayiin dollar oo loo haysto labada eedeysane taas oo ay soo gudbisay xeer ilaalinta qaranka eedeysanaha koowaad oo ah Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa waxaa lagu soo eedeeyay inuu qaatay lacag dhan 8,667,220 dollar taas oo la waayay intii u dhaxaysay 6 August sanadkii 2020 ilaa 20 bishii April sanadkan aynu ku guda jirno 2023 sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu tirtiray raadka islamarkaana uu si xawilay lacagtaas oo ugu faa'iideystay si shakhsiyan ah sida lagu xusay eedda labaad sidoo kale Maxamed Cabdi Mukhtaar oo isna agaasimihii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu soo eedeeyay inuu lunsaday lacag gaarayso 3,404,900 dollar oo lagu waayay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Maxamed Cadde ayaa sidoo kale loo haystaa inuu tiray raadka islamarkaana uu si shakhsiyan ah ugu faa'iideystay lacagtaasi malaayiinta dollar ah labada eedeysane oo ka hor hadlay maxkamadda ayaa iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyay waxaana haatan socda dood u dhaxaysa qareenka iyo xeer ilaalinta qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dib ula wareegay deegaanka Goofgaduud Buurey ee gobolka Baay oo xaddi toddobaadkan
ay dagaal kula wareegtay kooxda al-shabaab sida ay warbaahintu xaqiijiyeen dad ku nool deegaankaas ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa shalay gudaha u galay deegaankan waxayna dib u degeen xeryahoodii ay axadii soo baneeyeen kooxda al-shabaab ayaa la sheegay inay isaga carartay deegaankaas markii ay ka war heleen in ciidanka xoogga dalka ay ku soo wajahan yihiin oo duulaan ay ku yihiin goobgaduud buurey ciidanka xoogga dalka oo axadii 23 bishan soo baneeyay deegaankaas kadib dagaal kooban oo al-shabaab ay kula galeen ayaa shalay lagu amray inay u xoreeyaan goobgaduud buurey deegaankan oo ah mid istaraatiiji ah ayaa 30 kilomitir oo kaliya u jira magaalada Baydhabo oo caasimad u ah maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamulada ay dhibaatooyinka ugu badan ku hayso kooxda al-shabaab markasta waxaa dhacda in deegaanka goobgaduud ay isku bedbedelaan ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab waxaana taas u sababa goobta istaraatiijiga ee deegaankaasi uu ku yaalo sida ay qabaan khubarada ammaanka wuxuu ka mid yahay deegaanada laga difaaco magaalada Baydhabo waxayna bulshada reer Koonfur Galbeed dareemaan qalqal xoog leh markii goobgaduud ay u gacan gasho kooxda al-shabaab taas oo sababta in markasta ciidan lagu amro inay dib u xereeyaan deegaankaasi guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed ayaa culeys dardaran ku haysta kooxda al-shabaab oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu soo adkaadeen dagaalo culus oo bilihii la soo dhaafay ka dhacay gobolada Hirshabelle iyo Galgaduud madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub inay hubiyaan inaan waqtiga loo kordhin waxa ugu yeeray mamnuucida aan la aqbali karin ee ay 5 dal oo Yurub ahi ku soo rogeen sarreenka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda Zelensky ayaa tallaabadaas ku tilmaamay inay tahay mid aan ka turjumaynin mabaadi'da Yurub xilli 5 dal oo ku yaala bartamaha Yurub ay doonayaan in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta sarreenka Ukraine heshiiskaas oo haatan waqtigiisu ku egyahay bisha September 15keeda hase ahaatee waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa dhamaadka sanadkan madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in tallaabo kasta oo waqtiga loo kordhiyo mamnuucida lagu soo rogay sarreenka Ukraine ay tahay mid aan la qaadan karin sidoo kale waxa uu sheegay in dalkiisu uu kala shaqeynayo cid walba sidii xal looga heli lahaa tabashooyinka jira midowga Yurub ayaa bishii May ogolaaday in dalalka Bulgaria, Hungary, Poland, Romania iyo Slovakia inay mamnuuci karaan sarreenka galeyda iyo dalagyada kale ee beeraha ka soo go'a Ukraine in aan lagu iibin karin gudaha dalkaas hase ahaatee ay ruqsad u siiyaan in dalalkooda ay dhex mari karaan si looga iibgeeyo suuqyada kale ee Yurub ama caalamka intiisa kale dalalkan ayaa qaarkood waxay si weyn uga taageeraan Ukraine sidii ay isaga caabin lahaayeen dagaalka ay kula jirto Ruushka si ahaatee waxay ku doodayaan in haddii ay ogolaadaan sarreenka iyo wax soo saarka kale ee beeraha ee Ukraine inay dhaawac u geysan doonto beeraleydooda Poland ayaa sheegay in ay qaadi doonaan mamnuucida ay soo rogtay xitaa marka la gaaro bisha September ama xataa haddii midowga Yurub uu isku raaci waayo in waqtiga la kordhiyo ugu dambeyntii ugu yaraan 34 qof oo ay ku jiraan 7 askari ayaa lagu dilay weerar kooxo burcada ku qaadeen gobolka waqooyi galbeed ee Nigeria ee Zamfara sida uu sheegay Ismaaciil Magaji oo madaxa kooxaha feejignaanta ee dadka deegaanka weerarkan oo ka dhacay degmada Dangulbi ee fog ee ismaamulka Maru ee gobolkaasi ayaa dhacay galabnimadii Isniinta sida uu kala wararka ee Reuters u sheegay Ismaaciil Magaji Lawali Zonai oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa yiri 27 ka mid ah dadka tuulada ayaa lagu dilay weerarka halka 7 ka mid ah ciidamada militariga la weeraray ay u socdeen inay bulshada ka caawiyaan weerarka foosh xun kooxo burcad oo si aad u hubaysan oo dadku uga yeeraan burcad ayaa dhibaato xoogan ka geystay waqooyi galbeed ee Nigeria 3 sano la soo dhaafay iyagoo qafaashay kumanaan qof iyagoo dilay boqolaal kana dhigay meelo aan ammaan ahayn in lagu safro weerarada ayaa jahwareer ku riday ciidamada ammaanka Nigeria oo si xad dhaaf ah ula dagaalamaya waxa looga yeero kacdoonka islaamiyiinta ee 14 sano ee ka socda waqooyi bari dalkaasi intaas aynu ku safmeerina markii aad kala socoteen telefishinka SBT TV inta warkan war lama kuma dano waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo